Dhacdooyin badan oo taariikhi ah iyo kuwa siyaasadeed ayaa soo saaray xaalado gaar ah oo dhowr gobol oo xiriir la leh Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha, iyada oo Beijing ay u aragto qayb muhiim ah oo ka mid ah dhulkeeda oo arrimaheeda gudaha ah ay kula macaamisho mabda' ahaan hal China, laba nidaam, halka qaar ka mid ah meelahaasi loo tixgeliyo Taiwan dowlad madax bannaan. Taiwan. Natiijada dagaalkii sokeeye. Magaca jasiiradda Taiwan ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday diiwaanada Shiinaha kadib markii Emperador Ming Chaoru uu u diray guuto si ay u sahmiyaan gobolka AD 239. Waxaa gumaystay Holland intii u dhaxaysay 1624 ilaa 1661, kadibna waxa ay hoos timid maamulka qoyska Qing ee Shiinaha laga bilaabo 1683 ilaa 1895. Laga soo bilaabo qarnigii 17aad, gobolku waxa uu helay soo galooti badan oo Shiinaha ah, badankooduna waxay ka soo jeedaan qabaa'ilka Shiinaha Hoklo ama Hakka. Sanadkii 1895 boqortooyadii Japan waxa ay qabsatay Taiwan kadib markii ay ka mid ahayd dhulkii Shiinaha ee dagaalkii ugu horeeyay ee Shiinaha iyo Japan, waxayna dib ugu soo noqotay xukunka Jamhuuriyadda Shiinaha 1945 dagaalkii labaad ee adduunka kadib. Muddadaasi waxa ay ku soo beegantay dagaalkii sokeeye ee Shiinaha ee u dhexeeyay taliska Jamhuuriyadda Shiinaha iyo xisbiga Shuuciga ee Shiinaha, waxaana dagaalkaasi ku guuleystay xisbigii Shuuciga ee madaxda uu ka ahaa hogaamiyihii hore ee Mao Zedong 1994, waxaana uu ku dhawaaqay aasaaska Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha. Dowladdii Kuomintang oo ka wakiilka ah nidaamka Jamhuuriyadda Shiinaha waxay u carartay Taiwan, waxayna halkaasi kaga dhawaaqday dowlad, waxayna mamnuucday xiriirka Jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha. Beijing waxay tixgelinaysaa arrinta Taiwan ee uu ka tegay dagaalkii sokeeye ee Shiinaha, waxayna sheegtay in iyada oo taageero ka helaysa dowladda Mareykanka kuwii ka soo cararay Shiinaha ay sameeyeen maamul gooni-goos oo xoog hub ugu dhaxaysa Taiwan, waxayna aaminsan tahay in Mareykanka uu hurinayo iska horimaadka iyo sidoo kale sii hurinta haraadiga dagaalkii sokeeye ee Shiinaha, iyadoo taageero militari siisa maamulka Taiwan tan iyo 1950meeyadii qarnigii la soo dhaafay. Sanadkii 1950, Taiwan waxa ay xulafo la noqotay Washington dagaalka ka dhanka ah Shiinaha ee Korea. Mareykanku waxa uu maamulka Taiwan la saxiixday Diseembar 1954 waxa loo yaqaano heshiiska difaaca labada dhinac, wuxuuna Taiwan hoosgeeyay ilaalintiisa. Shiinuhu wuxuu u arkaa arrinta Taiwan arrin gudaha ah oo Shiinuhu leeyahay. Shiinaha labada dhinac ee marinbiyoodka Taiwan waa in ay iyagu xalliyaan. Waxay diidan tahay in Taiwan ay ka go'do, waxayna leedahay waa gobolka Shiinaha, laba Shiine ama hal Shiine, hal Taiwan ama madax bannaanida Taiwan. 25 Oktoobar 1971, Beijing waxaa la siiyey kursiga Taiwan ee qaramada midoobay. Maarso 1979, Washington waxay xiriir diblomaasiyadeed la sameysay Beijing. Mareykanka sida dhammaan bulshada caalamka waxay u hoggaansameen siyaasadda hal Shiinaha ah, iyagoo u aqoonsaday kaliya Beijing inay tahay dowlad sharci ah oo aan ka hor istaagin inay xiriir dhaqaale iyo mid militariba la yeelato Taipei. 2 bishii Novembar 1987, Taiwaneska ayaa loo oggolaaday in ay aadaan dhulweynaha Shiinaha si ay isugu keenaan qoyska, taas oo u furaysa dariiqa isdhaafsiga ganacsiga. Sanadkii 1991, Taipei waxa ay baabi'isay tallaabooyinka lagu abuuray xaalad dagaal oo lala galo Shiinaha. Bishii Juun 1995, Beijing waxa ay hakisay wadaxaajoodkii sida caadiga ahayd ee looga soo horjeeday booqashadii madaxweynaha Taiwan Lee ee Mareykanka. Sanadkii 1996, Shiinuhu waxa uu gantaal ku riday meel u dhow xeebta Taiwan ka hor doorashadii ugu horeysay ee madaxtinimo oo toos ah ee Taiwan ee 23 Maarso, taasoo uu ku guuleystay Lee Teng. 29 Janawari 2005, duulimaadkii ugu horeeyay ee tooska ahaa ee Shiinaha iyo Taiwan ayaa dhacay iyadoo xisbiga Kuomintang uu lumiyay awoodda bishii Maarso 2000 markii la doortay hogaamiyaha madax bannaanida Chen Shui-bian oo ah madaxweynihii ugu horeeyay ee aan ahayn KMT oo dib loo doortay 2004. 14 Maarso 2005, Beijing waxay ansixisay sharci ka soo horjeeda gooni-u-goosadka, kaasoo u baahan in dib loogu noqdo. Aan nabad ahayn micnaheedu waa haddii Taiwan ay ku dhawaaqday madax bannaanideeda 29 bishii Abriil ee isla sanadkaasi, waxaa magaalada Beijing ka dhacay kulan lagu tilmaamay inuu ahaa mid taariikhi ah oo dhex maray madaxda labada xisbi, hogaamiyaha KMT Liang Chang iyo sidoo kale madaxweyne Hu Jintao, hogaamiyaha xisbiga Shuuciga Shiinaha markii ugu horeysay tan iyo 1949. Bishii Juun 12, 2008, Beijing iyo Taipei waxa ay dib u bilaabeen wadahadalkoodii
kaas oo la joojiyay 1995 kadib markii Ying Chiu oo ahaa murashaxa KMT ee isu soo dhaweynta Shiinaha uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Maarso. Isla sanadkaasina waxaa dib loo doortay 2012. Isla sanadkaasi waxaana dib loo doortay 2012. 4 November 2008 heshiisyo dhaqaale oo isdaba joog ah ayaa u dhexeeya labada dhinac si loo sameeyo gaadiidka cirka iyo dhiirigelinta dalxiiska. 29 Juun 2010 heshiis guud oo ku saabsan iskaashiga dhaqaalaha ayaa waxaa kala saxiixday Beijing iyo Taipei. 11 Febraayo 2014 Beijing iyo Taipei waxa ay yeesheen wadahadal dowladeed markii ugu horeysay tan iyo 1949. 7 November 2015 madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Singapore kula kulmay madaxweynaha Taiwan Ma Ying-jeou markii ugu horeysay tan iyo 1994. Xiriirka u dhexeeya Taiwan iyo Shiinaha ayaa ku soo noqday xiisad bishii Agosto 2012 kadib markii ay booqatay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ee Taipei. Booqasho uu Shiinuhu ku cambaariyay kuna hanjabay in uu ka jawaabi doono, waxayna ku dhawaaqday dholatus military oo ay ku soo rogtay cunaqabateyn shakhsiyaad Mareykanka ah oo ay ku jirto Pelosi. Madax bannaanida Hong Kong gumeystihii Ingiriiska kadib. Hong Kong waxa ay ahayd qayb ka mid ah Shiinaha ilaa ay hoos u dhacday gumeysigii Ingiriiska kadib dagaalkii ugu horeeyay ee Opium, kaas oo Shiinuhu lagu qasbay in uu ka baxo heshiiskii Nanjing ee 1839. Sanadkii 1898 heshiiskii fidinta Hong Kong waxaa wada saxiixday Great Britain iyo Shiinaha, kaas oo bixiyay kareenta aagga dhulka Hong Kong ee Ingiriiska muddo 100 sano ah, taas oo siinaysa London xuquuq buuxda oo lagu xoojinayo gobolka ciidan ahaan. Sanadkii 1994 intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee Shiinaha, tiro badan oo Shiinees ah ayaa ku soo qulqulaya gobolka. Shirkado badan oo Shiinees ah ayaa u guuray xaruntooda Hong Kong. Hong Kong kadib waxa ay isu rogtay goob warshadeed oo muhiim ah. Waxay noqotay aag dhaqaale oo gaar ah oo ka tirsan Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha, waxayna ahayd isha koowaad ee maalgashiga shisheeye ee Shiinaha. Gobolku waxa uu ku sii jiray gacanta Ingiriiska ilaa Shiinuhu uu ku dhawaaqay 1 July 1997 dib u soo celinta madax bannaanida Hong Kong oo ah gobol maamul oo gaar ah oo si toos ah u hoostaga dowladda dhexe ee Shiinaha. 19 Diseembar 1984 ra'iisul wasaarihii Shiinaha iyo ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ayaa ku saxiixday Beijing bayaanka wadajirka ah ee Shiinaha British ee lagu wareejinayo lahaanshaha Hong Kong ee Shiinaha, wuxuuna dhaqan galay 27 May 1985. Dowladda Ingiriiska ayaa ballan qaaday in ay ku wareejinayso dhulka Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha. Isla maalintaas, dowladda dhexe ee Beijing waxay ballan qaaday in nidaamkii hanti wadaagga ee Hong Kong aanu isbedeli doonin ugu yaraan 50 sano ilaa iyo 2047. Dowladda Shiinaha ayaa qaadatay hirgelinta nidaamka hal wadan laba nidaam ee gobolka Hong Kong, kaas oo ujeedadiisu ahayd sida ay ku dhawaaqday in dalka lagu mideeyo si nabad ah iyo in la hubiyo in wadanku u hoggaansamo nidaamka hanti wadaagga iyada oo la ilaalinayo nidaamkaas, iyadoona sidoo kale suuragal ay tahay in lagu raaxaysto heerka madax bannaanida ah. Hong Kong waxa ay heshay mudnaanta oo ay ku jiraan madax bannaani ballaaran, xorriyadda hadalka iyo garsoor madax bannaan. Hong Kong waxay ka qayb gashaa ururo iyo shirar caalami ah oo badan oo magaca Shiine Hong Kong. Sanadkii 2002 maamulka sare ee Hong Kong ayaa soo jeediyay sharci dambi ka dhigaya baaqida gooni-goosadka iyo sidoo kale banaanbaxyada looga soo horjeedo xisbiga shuuciga ee Shiinaha, iyo sidoo kale in dowladda loo ogolaado inay baarto, soo qabato oo ay ciqaabto tuhmanayaasha. Waxaana sharcigan uu mudaharaadyo waaweyn ka dhigay gobolka, taasoo keentay in la joojiyo. 26 Sebtembar 2014 magaalada Hong Kong waxaa ka dhacay mudaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo hogaamiyaha maamulka fulinta oo ay u magacowday maamulka dhexe caasimadda Beijing oo loogu magacdaray dhaqdhaqaaqa daladda. 10,000 oo arday iyo howlwadeeno ah ayaa isu soo baxay si ay u dalbadaan in si buuxda loo hirgeliyo dimuqraadiyadda iyo damaanad qaadka xaqa codbixinta xorta ah, iyadoo ujeedaduna tahay in sanadka 2017 lagu doorto madaxweynaha cusub waaxda fulinta. wax yar kadib mudaharaadyada ardaydu waxa ay ku milmeen mudaharaadyo waaweyn oo kale oo loogu magacdaray xarunta qabsashada. bishii Juun 2019 mudaharaadyo ayaa ka qarxay degmada lagu magacaabo Tsuen si ay ugu mudaharaadaan sharciga baarlamaanka oo u ogolaanaya mas'uuliyiinta Hong Kong inay u diraan tuhmanayaasha dambiyada in lagu maxkamadeeyo Shiinaha. inkasta oo la hakiyay mashruuca, mudaharaadyada waxa ay sii wadeen dhaleeceynta habdhaqanada booliiska ee iyaga ka dhanka ah, waxayna si weyn ugu fideen gobolka oo uu ku jira garoonka diyaaradaha Hong Kong. 2 milyan oo qof ayaa u soo baxay si ay u dalbadaan dib u habeyn dimuqraadi ah. Shiinaha ayaa dhaleeciyay mudaharaadyada oo ku tilmaamay falalka argagixisada.
kadib mudaharaadyadii waaweynaa ee 2019 ee looga soo horjeeday saameynta Beijing. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu saxiixay sharciga nabadgelyada qaran ee Hong Kong 30 Juun 2020, waxaana lagu daray sharciga aasaasiga ah kaas oo ah dastuurkii gobolka ilaa 1997 oo uu codeeyay 3,000 oo ka mid ah ku-xigeenada golaha shacbiga qaranka in lagu dhaqo sharcigan. Sharciga ayaa ujeedadiisu tahay in la xakameeyo dhaqdhaqaaqyada kala goosadka iyo argagixisada, ka hortagga qarinta iyo sidoo kale soo celinta xasiloonida gobolka, iyada oo laga hortagayo faragelinta iyo shirqoolo kasta oo shisheeyaha ah ama dalabaadka goosashada, ayay ku dhawaaqday wakaaladda wararka ee Xinhua. Kadibna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu bilaabi doono baabi'inta canshuur dhaafka ganacsiga ee la siiyay Hong Kong, isaga oo leh Hong Kong hadda ma lahan madax bannaani ku filan ee lagu caddeeyo daaweynta gaarka ah ee aan siinayno tan iyo markii uu ku soo laabtay Shiinaha. Marka laga soo tago America, Britain, Canada iyo Australia waxay cambaareeyeen go'aanka dowladda Shiinaha ee ku saabsan sharciga amniga qaranka, iyaga oo sheegay inay khatar ku tahay xorriyadda oo ay jebinayso heshiiskii Shiinaha iyo Ingiriiska ee 1984 ee madax bannaanida magaalada. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ku jawaabtay Hong Kong waa Shiinaha, arrimaha Hong Kongna waa qayb ka mid ah arrimaha gudaha ee Shiinaha. Safiirka Shiinaha u fadhiya qaramada midoobay Zhang Jun ayaa sheegay in codsiga Washington ee ku aadan kulanka golaha ammaanka ee Hong Kong uu yahay mid aan waxba ka jirin, isaga oo xusay in sharciga amniga qaranka Hong Kong uu yahay arrin gudaha ah oo uusan golaha ammaanku shaqo ku lahayn. Macau, saldhigga ganacsiga ee gumeysiga Boortaqiiska. Sanadkii 1553 Boortaqiiska waxa uu ka codsaday dowladda Shiinaha inay sameystaan saldhig ganacsi, waxaana ay ogolaansho ka heleen mas'uuliyiinta Shiinaha ee maxalliga ah inay si kumeel gaar ah u joogaan Macau. Sanadkii 1573 Boortaqiisku waxa ay bilaabeen in ay dowladda Shiinaha ka bixiyaan kirada dhulkii ay ku ganacsanayeen 300 oo sano ilaa dagaalkii Opium. Dowladdii Shiinaha ee Ming iyo Qing waxa ay ku adkeysanayeen awoodooda Macau, aaguna waxa uu hoos imaanayay sharciga Shiinaha. Dowladahan ayaa u ogolaaday Boortaqiiska inay si iskooda u maamulaan arrimahooda bulsho iyo dhaqaale gudaha Macau, mana faragelin arrimahooda gudaha. Sanadkii 1583 waxay u ogolaatay Boortaqiisku inay dhistaan Senate si ay u xalliyaan dhibaatooyinkooda, iyada oo ku saleynaya aqoonsiga madax bannaanida Shiinaha ee gobolka iyo in qaabka madax bannaan uusan ahayn mid siyaasadeed. Kadib dagaalkii Opium iyo Shiinaha waxay ku wareejiyeen Hong Kong. Boortaqiisku waxay dalbadeen in laga dhaafo bixinta kirada sanadlaha ah ee dhulkii ay codsadeen 1553, waxayna si tartiib tartiib ah u bilaabeen inay qabsadaan Macau. Sanadkii 1928 dowladda Shiinaha ayaa lagu qasbay inay saxiixdo heshiiska saaxiibtinimada iyo ganacsiga ee Sino-Boortaqiis, sida in Boortaqiisku xaq u leeyahay in uu dego oo si joogto ah u maamulo Macau maadaama uu gobolka u magacaabay guddoomiye Boortaqiiska ah. Shiinuhu siyaasad ahaan uu ku sii jiray. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo ay wakiil ka tahay xukuumadda Kuomintang ayaa ku wargelisay dhinaca Boortaqiiska inay si rasmi ah u baabi'iyeen heshiiskii kadib markii la aasaasay Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha 1949. Dowladda Shiinaha waxay ku dhawaaqday in la baabi'iyay dhammaan heshiisyada aan sinayn. Bishii Maarso 1972 wakiilka joogtada ah ee Shiinaha ee guddiga gaarka ah ee decolonization waxa uu soo diray warqad uu ku sheegayo mowqifka mabda'a ah ee Shiinaha ee gobolada Hong Kong iyo Macau. 8 Febraayo 1979 dowladaha Shiinaha iyo Boortaqiisku waxay ku heshiiyeen in Macau loo magacaabo dhul Shiine ah oo hoos yimaada maamulka Boortaqiiska, iyadoo arrintuna si wanaagsan loo dhameeyay mustaqbalka. Bishii Juun 1986 Shiinaha iyo Boortaqiisku waxay bilaabeen wadaxaajood ku saabsan arrinta Macau, kaas oo ku dhammaaday saxiixa bayaanka wadajirka ah ee Sino-Boortaqiis 13 Abriil 1987 ee Beijing, kaas oo qeexaya in Shiinuhu dib u bilaabi doono madax bannaanidiisa Macau laga bilaabo 20 Novembar 1999. 13 Abriil 1988 waxaa la sameeyay guddi soo diyaariyay sharciga aasaasiga ah ee gobolka maamulka Macau. 31 Maarsna 1993 golaha shacbiga ee Shiinaha ayaa ansixiyay sharciga aasaasiga ah ee gobolka maamulka Macau oo leh astaanta rasmiga ah iyo calanka. 20 Diseembar 1999 muddadaasi waxaa loo yaqaanay xilli kumeel gaar ah, taas oo Boortaqiis bilaabay inay si tartiib tartiiba u wareejiso awoodda Shiinaha iyo sidoo kale qaadashada Shiinaha oo ah luqadda rasmiga ah ee gobolka. 15 May 1999 ayaa la dhisay dowladdii ugu horeysay ee gobolka Macau ee Shiinaha, waxaana Edmund Hu Hao loo magacaabay madaxweynihii ugu horeeyay ee gobolka.
dowladda Shiinuhu waxay qaadatay ku dhaqanka nidaamka hal wadan iyo laba nidaam sida Hong Kong. Tibet, 10 sano oo xiisada. Taariikhda Tibet waxay dib ugu noqotaa in ka badan 18,000 sano. Qaar ka mid ah xisaabaadka taariikhiga ah ayaa sheegaya in hogaamiye qabiil oo lagu magacaabo Zongzan Gambo uu boqortooyo ka aasaasay dooxada lagu magacaabo Zengbo inta u dhaxaysay bartamaha iyo koonfurta dhulka Tibet 620, wuxuuna dhisay qasriga lagu magacaabo Bodala oo ay ku jiraan 999 qol, waxayna guursadeen Princess Wenqin oo ah gabadha u dhalay boqorkii Shiinaha ee Tang Dynasty. Qarnigii 8aad, Tibet waxa ay noqotay dowlad military oo muhiim u ah Aasiya ilaa iyo sidoo kale Mongols oo ay ku soo duuleen. Boqortooyadiina waa la wiiqay waxaana dalka ka hirgalay nidaamka theocratic oo weli jira. Taariikhda casriga intii u dhaxaysay 1913 ilaa 1914 waxaa magaalada Ismaail ee waqooyiga Hindiya lagu qabtay shir lagu cadeynayo xiriirka ka dhexeeya Ingiriiska, Tibet iyo Shiinaha. Mid ka mid ah natiijadii ka soo baxdayna waxay ahayd calaamadeynta xadka Hindiya iyo sidoo kale Tibet ee loo yaqaano McMahon Line, laakiin Shiinuhu ma saxiixin. Sidaas daraadeed waxaa ka haray mowduuc muran iyo khilaaf u dhexeeya Shiinaha iyo Hindiya. 23 May, Shiinaha iyo dowladda hoose ee Tibet waxa ay saxiixeen habab loogu talagalay xoreynta nabadda ee Tibet, kaasoo loo tixraacay heshiiskii 17 qodob. Gobolka waxa uu noqday gobol ismaamulo oo ka tirsan nidaamka Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha ilaa uu ka bilaabmay kacdoonkii dadweynaha sanadkii 1959 oo ay ku dalbanayeen madax bannaani markii ay weerareen ciidanka Shiinaha kuna dhawaaqay madax bannaanida 19 Maarso 1959. balse Shiinuhu waxa uu xoojinayaa kacdoonkii wuxuuna eriyay hogaamiyihii Buddhistaha ee dalbanayay in Shiinaha uu ka go'o Lama. Kadibna waxa uu cararay Hindiya oo uu ku soo dhisay dowladdiisa. Shiinuhu wuxuu u magacaabay Pashan Lama beddelkiisa. Dalai Lama waxa uu degay Dharamsala oo ka tirsan gobolka lagu magacaabo Himachal Pradesh ee waqooyiga Hindiya, halkaasoo uu ka dhisay maamul dhexe oo dowladdii Tibet ee dibadbaxa ahayd. Baarlamaanka Tibet waxaa la dhisay 1960, dastuurkiisa ayaa la soo saaray 1963 iyadoo ujeedaduna ahayd in la gaaro dalabka madax bannaanida, taasoo si tartiib tartiib isugu bedeshay dalabka madax bannaanida ballaaran. Bishii Sebtembar 1965, shirkii ugu horeeyay ee shirweynihii koowaad ee dadka Tibet ayaa la qabtay. Abi Wangchimi oo ahaa ku-xigeenka dadka ayaa loo doortay guddoomiyaha guddiga dadka gobolka, wuxuuna si rasmi ah u noqday ismaamulka Tibet. Sanadkii 1987, Dalai Lama waxa uu soo bandhigay qorshe 5 qodob ah oo nabadeed, isagoo ujeedkiisu ahaa in Tibet laga dhigo gobol nabadeed oo dhexda u ah gobolka dhibaataysan ee Himalayas. Jawaabaha laga bixiyay qorshahan ayaa kala duwanaa, waxaana si wanaagsan ula kulmay reer galbeedka si ka duwan Shiinaha oo si weyn u diiday. Tan iyo 2008, mudaharaadyo looga soo horjeedo cadaadiska Shiinaha ayaa qarxay. Dibadbaxayaashu waxay yiraahdeen kadibna la sameeyay ilaa suufiyada Buddhist ay bilaabeen taxane ah mudaharaadyo isgubida iyagoo dab qabadsiinaya si ay u noqoto cadaadis, waxayna dalbanayaan madax bannaanidooda, kaas oo ka soo bilaabmay Sichuan kadibna ku faafay gobolada kale ee Shiinaha. Shiinaha ayaa ka jawaabay oo bilaabay mid ka mid ah howlgalladii ugu ballaarnaa tan iyo markii uu bilowday howlgalkii ka dhanka ahaa dhaqdhaqaaqa Tiananmen 1989. 2011, Dalai Lama waxa uu ka tanaasulay doorkiisii hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Tibet ee dibadda, wuxuuna ku qanacsan yahay doorkiisa ruuxiga ah. Shiinaha ayaa yiri bilowga qarnigii 13aad, dowladda dhexe ee Shiinaha waxay sii waday in ay ku dhaqdo madax bannaanida Tibet. Gobolka Tibetna weligiis ma noqon dal madax bannaan, mana jirin dowlad ka dhisan caalamka oo Tibet u aqoonsan tahay dal madax bannaan. daawada aragtidaadu maxay kula tahay? qaybta hoose commentiga inoogu reeb mahadsanid.